بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أن سيدان أن عشركي هورا كسو قادرني وحان نيري حديثك أن لا أقبلين عاليسك أما مردودك نقونيا لابا سببود oo waaweyn ayaa keenay in xadiidkii la diido oo mid ay ahayd in saqdi uu ku yimid sanadkiisii iyo jidkii lagu soo wariyey ayaa kala dhiman oo dad baa ka maqan ama qaar baa xagga hore ka maqan bilowga ama qaar baa xagga dhammaadka ka maqan ama qaar baa dhexdii ka maqan. Intaasoo dhan iyo mid walba magaciisii ayaynu soo qaadanay waxaynu nidhi xadiidkii sanadkiisa ay dad ka maqan yihiin bilowga yani dhankii tusaale ahaan imaam nasaa'i qofka uu ka warinaya hadduu meesha ka maqan yahay ama bukhaari ciddii uu ka warinaya hadday ka maqan tahay waxaan leenahay xadiidka waxaa yahdaa mucallaq ama in sanadkiisa dhan ba meesha laga jaro oo la yahda nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi abu hureyre wuxuu yidhi saasoo kale sanadkii oo dhan meesha laga saaro ama qofka ugu horeeya uu ka maqan yahay labadaasba waxaa la dhahaa mucallaq. Waxaa kaloo iyadana jirta in dhanka ugu dambeysay xaggii nebiga sala allahu caleyh wasalam ama qofkii warkaa laga soo warinayey hadduu maqan yahay haddii nebiga sala allahu caleyh wasalam saxaabiga warka ka wariyey uu maqan yahay oo taabicigu u yiraahdo nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi yani xadiidkaas maxaa leedahaa mursal oo dhankii taabiciga qofka ka dambeeyey ayaa ka maqan. Sababta keenaysa in la diido xadiidkaas oo marduud la yiraahdana waxa weeyaan mararka qaar mar kasta qof ka maqani saxaabi ma aha waayo saxaabadiiga waan ku wada kalsoonnahay laakiin marba waxaa dhacda in taabici uu taabici kale ka warinayo kaasina taabici saddexaad uu kasii warinayo maadaama qofkii aan la garanaynin meesha ka maqan saxaabi inuu yahay ma garan karno laba taabico kala warinay inay yihiin ma garan karno sida awgeed ayaa waxaa leeyahay xadiidkaas saas laguma aqbali karo. Waxaa iyaduna aynu soo marnay dhexda haddii cidi ka maqan tahay waxaan nidhi hal qof hadduu ka maqan yahay dhexda meel ama laba meeloodoo kala duwan oo aan isku xigin ay qof ka maqan yihiin waxaan idhahnaa munqatic. Munqaticana waxaan nidhi si guud sanad kasta oo kala go-an munqatic waa la yidhaahdaa laakiin erey bixinta gaarka ee halkan looga jeeda waxa weeyaan hal qof meel dhexda ah hadduu ka maqan yahay ama laba qof meel dhexda ka mid ah ay ka maqan yihiin laakiin aysan isku xigin labadaa jeerba munqatic ayaynu u adeegsanaynaa. laakiin haddii laba qofoo isku xiga ama saddex isku xiga ay maqan yihiin waxaa layidhaha mucdal. Mucdalkana waxa weeyaan hal qof hadduu maqan yahay xogay hawshiisu weli way dhowdahay laakiin laba qof oo isku xiga markay maqan yihiin arrintii way sii adkaanaysaa sidii loo heli lahaa cidda meesha ka maqan. Marka mushkiladii sii weynaatay oo sii cakirmatay ayaa ereygani tilmaamaya mucdalnimaduna halkaasay ka imanaysaa arrintii waa sii cakirmatay dhibaatadii iyo qofkii maqnaa raadintiisii ayaa sii adkaanaysa oo sii cuslaanaysa sababtaas ayaa mucdal loo leeyahay. Inta marka waxaa inoogu xiga qaybtii saqdigii markaynu intaa kaga soo baxnay hadda wuxuu leeyahay uma tacnu in la tacniyo wariyihii ama la duro oo wax laga sheego la dhaleeceeyo waxaa keeni kara tobankan wax uu inoo tilmaami doono. Wuxuu leeyahay sababta wariyaha loo dacnin karo ee loo duri karo wax looga sheegi karo waxaa ka mid ah ima an yakuuna likadibi raawi. wariyihii markaan dacninay waxaa keeni karta inuu wariyahaasi beenawaas yahay qof been sheegay inuu yahay likadibi raawi been buu sheegay aw tuhmatihi bidalik ama waxaa lagu tuhmayaa inuu been sheegay been cad laguma hayo laakiin waa tuhumkii baa jira inuu been sheegayo aw fuxshi khalatihi ama gefka uu samaynayo qaladka uu ku dhacayo ayaa wuxuu yahay mid aad u badan aad buu u khaldamaya wuxuu warinayo marar badan buu wax khaldaya oo isku qasaya sida awgeed wuxuu leeyahay fuxshi khalatihi aw ghaflatihi ama waba qofkan warka soo warinaya waa qof iska doohan oo aan si fiican oo dee qof wax fahamkiisiiba halkaa waxaa dhibaato ka imanaysa qof aan waxba kala garanayninba wuxuu warinayo sida toosan iyo sida saxda warkii ahaa iyo sidii khaladka aan kala sooci karin iska dhoohan war lagama qaadan karo xadiis nabiga sala allah alay slam laga soo warinayo. sida awgeed qofku qafla hadduu qof iska muqafala uu yahay oo dhoohan warkiisi lama qaadan karo la diidaya. Gafladaas waxaa ka mid ah in haddii la yihahdo xadiid kale aanu kaa warinay ma sidaas ahaa uu yirahdo de haye waa yahay wixii loo saxsaxo wixii isagu warinayay ee ahayd inuu dadka u saxo
haddii isagii inta wax loo sheego loo laqimo iska qaadanayo, qofkaas qof war nebiga sal ly slam lagu aamini karo laga qaadan karo ma aha. aw fisqihi ama waa faasiq, qof faasiqa oo aan alle ka cabsigii lahayn. Waa lidkii cadlinimada. qof cadli ayaa warkiisu maqbuul ahaa. hadduu qofkuusan cadli ahayn oo faasiq yahay, warkiisi lama aqbalayo. aw wahmihi, qofkan inuu wax ismoodsiin, siduu warku ahaa si aan ahayn buu isu moodsiiyey, saasuuna ku warinaya. marka warku waxaan yidhi waa inuu ahaado dab, inuu leeyahay, inuu wixii la sugo oo qofkani warka uu maqlay si sugan oo la aamini karo inuu usoo warinayo. laakiin qofkani hadduu iska wahmi uu ku jiro oo uusan warkii u sugnayn, laguma kalsoonaan karo. taasaa keenaysa marka in qofkii uu wax si ismoodsiin ah wixii uu u warinayo. aw mukhaalafatihi, ama inuu warkii dad kaloo warka la wadaagay oo iyaguna soo wariyey inuu ku khilaafay. kaasina waxay keenaysaa in warkiisii la dacniyo oo la yidhahdo maxaa dadkan kale warka soo warinaya u khilaafaya. waa inaynu soo marnay waxyaalaha xadiidka maqbuulka laga doonaya waa inuusan shaad ahayn. shaadkuna waxa weeyaan waa in qofka warka warinaya uusan dad kale ku khilaafin warkii uu warinayay. wararka markaynu eegayno waxaan leenahay imse qof baa soo wariyey warkoodu war isu dhow oo dee wax hadday warinayaan waa inay warkoodu isku mid yahay. waxyaalo yaroo farqiga waa la aqbali kara, laakiin hadduu wax weyn kaga duwan yahay waxaan leenahay warkaas waa waxba ka siiya, sabab baa keentay inuusan u khaldamo. sida awgeed mukhaalafadu, inuu wariyayaashii kale ku khilaafo, waxay noqonaysaa wax lagu dacnin karo oo warkiisi lagu duri karo, lagu dhaleecayn karo oo dhibaato u keeni. aw jahaalatihi, ama wariyahanba lama yaqaano, waa majhuul, qof aan la aqoonin weeyaan. sida awgeed waxay imaanaysaa maadaama aan qofkii la garanaynin, inuu qof wanaagsan ahaa oo ammaanan iyo inuu ahaa qof aan ammaanayn oo xadiidkiisa aan la qaadanaynin, labadaa ku yahay maba garanayno, arrinkiisa jahli baan kaga jirnay. sida awgeed waxyaalaha lagu dacninayo xadiidkii marduud uu ku noqonayo ayay ka mid tahay. haddii qofkaas xadiidka waxaa ku jira qof majhuul ah, macnaheedu waxay noqonaysaa xadiidkaas wuxuu noqonayaa daciif ilaa qofkaas la ogaado qofka uu yahay. aw bidcatihi, ama qofkan waa bidcoole, bidcu ku jiraa. bidcooyinkuna way kala duwan yihiin, faahfaahintooda gani doona insha allah. waxaa jirta bidco lagu diidayo warkii, iyo waxaa jirta bidco aan lagu diidaynin warkii oo lagu qaadanayo. marka teebaa lagu diidaya, teebaa lagu qaadanaya, idan insha allah tacaala wayna arki doonaa. marka waxyaalaha dacniga keenaya in wariyihii warka soo wariyey la diido warkiisii oo yihahdo warkani waa daciif lama qaadanayo, waxaa ka mid ah bidcada oo aynu kala qaadi doono. aw suui xifdihi, ama qofkan xifdigiisaaba liitaba, qof wax hayn kara, wax xifdin kara oo xifdigiisa lagu kalsoonaan karo ma aha. tobankaa wax ayaa waxay noqonayaan 10 sababood oo keeni kara qofkaas warkiisa in la bushiyo, la dacniyo oo la diido, warkiina uu ku noqdo sidaas marduud. marka saktigii markaan soo dhammaynay, labadii waxa lagu diidaya xadiidka uu marduud ku noqoni ahaa sakti, sanadkiisa in cid ka maqan tahay, iyo dacni oo wariyihii in wax laga sheego oo la duro. intaas ayay kusoo koobmaysa. marka wuxuu leeyahay 10kan wax dacniga keenaya aan u qaybin karnaa labo. labadaan u qaybinayna waxa weeyaan mid ah la xidhiidha cadaaladii qofkan. somaynu dhihin qofka xadiidka warinaya ee xadiidkiisa la aqbali karo waa inuu cadli yahay, qof lagu kalsoonaan karo oo wargal ah waa inuu yahay. marka maadaama wargalnimadii qofkaas dhibaato u keeni karo, dhaawici kara. waxaa dhibaato u keeni karo oo dhaawici kara inuu qofkaas yahay beenaale, qof beenawaas oo been sheegaya, kadib qofkaas warkiisii cadlinimadiisii ayaa dhaawacmaysa. oo qof lagu kalsoonaan karo waxa uu sheegaya ma aha, markhaati ma gelayo, warkii uu sheego lagama qaadanayo. sidoo kale in lagu tuhmo beentii aw tuhmatihi bidalik, in been lagu tuhmo ayaa iyaduna dhaawacaysa qofkaas cadlinimadiisii. qofkan been buu sheegay, isaga cadli maha qofkaasi. qofkan been baa lagu tuhmaya, qofkaas cadlinimadii wuu ka baxaya. faasiq hadduu yahayna sidoo kale cadlinimadii wuu ka baxaya. hadduu bidco ku jirana, qof waxaan nabiga sala allahu calayhi wasalam diintii uu inooga tegay iyo saxaabadiisii wax lid ku ah wata oo ku dhaqmaya, qofka isaguna cadlinimadiisii ayay dhaawacaysa. qofku inuu waxyaalihii xaaraamta iyo dembiyada iska ilaaliyo ayaa cadlinimadii ku helayay. hadduu xadkaa ka baxo oo isagu xuduuddii alle uusan iyo nabiga sal slam uusan dhowraynin,
oo bidca uu ku dhex jiro wuxuu doono iska samaysanayo, qofkaas isaga warkiisa lama qaadanayo. Ama cadlinimadii waxaa dhaawacaysa, waayo cadlinimadu qof markaan leenahay qofka waanu intaynu qiimaynay baynu darajo siinay. haddii aan qofkan la garanayninba darajadaa ma siin karno, mana qiimayn karno. marka jahaaladii inuu qofkani majhuul aan la garanayn uu yahay, cadlinimadiisii bay dhaawacaysa, waayo maba garanaynaba wuxuu yahay. shantaas marka waxay la xidhiidhaan dhankii cadaaladda. shanta kalena waxay la xidhiidhaan dabdigii iyo warkani inuu sugan yahay, wax saxa oo sugan oo la qaadan kara warkani ma yahay, iyaguna ay ka hor imanayaan. shantaasina waxa weeyaan fuxshul qalad, qofkii hadduu gaf badan ku dhacayo, xadiidkii warinayay waxyaala badan oo khalada uu ku darayo, qofkaas waxaan leenahay warkiisu ma sugna, sugnaantii warkay dhaawacaysa. sidoo kale qof iska dhoohan oo haddii xitaa la yidhahdo maya sidan uu ahaa warku saas mu ahayn, qofkii kale wuxuu u sheegay iska qaadanayo, haddana saas u warinaya oo wax loo laqibi karo hadduu yahay, qofkan waxaa leenahay warkiisu waa marduud, qof la qaadan kara maaha, waayo inuu warkii sugan yahay baa dhaawacmaysa. ismoodsiin hadduu wax ku warinayo sidan u ahaa mise sidan u ahaa, uusan wixiiba uusan hubin, wahmi uu ku jiro, ayaa iyaduna waxay keenaysaa ama waxay keenaysaa in sugitaankii sugnaantii warku inay dhaawacanto. iyadana sugnaantii warka dhaawacaysa qofkani, dad badan oo isla warkii soo wari hadduu ku khilaafo, waxaa leeyahay intani qof waaba isku raacay sidani, adigu maxaad ugu khilaaftay, sugnaantii iyaduna ay dhaawacaysaa. su'ul xifd, qofka xifdigiisa hadduu liito war sugan ma warin karo. shantaasina waxay la xidhiidhaa sugnaantii warka, shantan kalena waxay la xidhiidhaa cadaaladii iyo cadlinimadii qofkaas. tobankaas uu kala qaybin. markuu uu halkan inoogu sheegayo sida uma kala saarayo, markuu sharxay ayuuna sheegaya sababta uusan u kala saarin. wuxuu leeyahay sababta uu sidan isugu dhex daray waxa uu u sameeyey in uu sida u kala daran yihiin buu u kala horreysiiyey, oo beenta ugu daran. qofkii been lagu sheego lagu diido been inuu sheegay, qofkaasa ugu daran. waxaana ugu fudud tobankan waxa qofka lagu dacnin karo xifdigiisu inuu liito. marka siday u kala daran yihiin ayaan u kala hormari ayuu leeyahay. taasina waxay keenaysaa labadii qaybood ee qaybtii cadaaladda la xidhiidhay iyo qaybtii sugnaanta warka la xidhiidhay inuu isku dhex daray, oo uu siday u kala darnaayeen u kala horreysiiyey. marka halkan lambarada aan u sameeyey waxa weeyaan beentii ayaa kow ah oo ugu daran, sida ay u kala daran yihiin. waxaana 10 ah su'ul xifd, labadana isakay daba maray, sidanay ku saxan yihiin. bidcadii oo 9 ah, jahaaladuna waxay noqonaysaa 8. marka kuwan hoose xagga ugu hooseeya ku yaala ayaa ugu sahlan, kuwan kor ku yaalana waa kuwa ugu daran. ase u kala sareeyaan ayay u kala daran yihiin ayuu ina leeyahay imaamku ibn xajar casqalaani raximahullahu tacaala. wariyihii tilmaamaha laga helo isaga iyo warkiisuba waxay noqonayaan daciif. qofkaas hadduu fuxshul khalad uu leeyahay, xadiidkii uu warinayo oo khaladaad badan ay ku jiraan, qofkaas waxaa leeyahay qofkaas waa raawi daciif ah oo warkiisa lama qaadan karo. haddii uu beenawaas yahay, warkiis waa tuuris. hadduu been lagu tuhmay waa sidoo kale. hadduu faasiq yahay waa sidoo kale. maadaama ay arrimahani kala duwan yihiin, oo qofka been nebiga sala allahu alay wasalam ku been abuuranaya iyo kii aan ku been abuuranayn laakiin xifdigiisu uu hooseeyey aysan isku mid ahayn, daciifkii ayaa wuxuu yeelanaya darajooyin kala duwan. marka darajooyinkaas ayaynu insha allah taala isla eegaynaa mid walba tilmaamta la siinaya. ka ugu daranna marka wuxuu noqonaya ugu horeeyaan nidhi, waxa ugu daran waa beentii. qofkii marka been lagu ogaado, qofkii been nebiga sala allahu calayhi wasalam been ka sheega, ula qasta inuu si cad oo ula kaca nebiga sal slam ugu been abuurto, qofka kadaabka ah warkiisa waxaa leedahay mawduuc. xadiidka waxa weeyaan waa xadiid la dejiyey, xadiid la alifay, cid baa aliftay, wax jira maaha. nebiga sal slam war laga soo wariyey maaha, waa war qof beenawaasa oo nebiga sal slam ku been abuuranaya uu alifay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sheegayo. xadiidka mawduuca waa kaas. xadiidkaas waa mawduuc haddii la yidhaahdo waa xadiis nebiga sal slam lagu been abuurtay oo cidi ay samaysay. siyaabo lagu ogaan karana way jiraan. mararka qaar waxaa jira in iyagu qofkaas inuu qirto intaasoo xadiis oo been alif. waxaa laga yaabaa qofka inuu ka toobad keeno oo uu sheego xadiisyadii beenta ahayd oo uu alifay.
waxaa iyaduna jirta lagu garan kara xadiid, haddaanu helno xadiid qur'aankii iyo sunnadii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo ijmaacii ummadda ka hor imanaya, xadiidkaas ma noqon karo xadiid sugan oo nebiga sal ly slam naga soo wariyey, waayo wixii kaloo dhan buuba lid ku yahay oo ka hor imanaya. sidoo kale xadiidkaas wax aynu caqliga ku garan karno sida laba laba lagu daray waa afar, hadduu nagu yidhahdo, hadduu soo wariyo wax saas oo kale ah oo caqliga lagu garan karo laakiin aan saxnayn, hadduu nagu yidhahdo laba laba lagu daray waa shan, xadiid uu inoo soo wariyo, anaa xadiidkan ma saxnaan karo, waayo nebigu sala allahu caleyh wasalam waxaasoo kale lagama soo warinin. waxyaalaha lagu garan waxay ka mid tahay waxaan caqliga geli karin in lasoo wariyo oo xadiis ahaan loo ekeysiiyo. waxaa kaloo ku garan karaan xaaladda uu ku yimid markaas. qofka beenawaaska markuu xadiidka alifayo marmarka qaarkood xaaladda lagu jiro ee warkaas uu ku yimid ayaa lagu ogaan karaa beenta uu sheegay. waxaa jirtaan soo marnay taabiciinta qaar ka mida xadiidkii munqatica ahaa, xasanulbasri taabicigii weynaa, waxaa dood culimada ka dhex jirta ah abu hureyre miyuu la kulmay oo xadiidyo miyuu ka wariyey. marka culimada qaar waxay leeyihiin abu hureyre lamuu kulmin, xadiidna kamuusan warinin. sida awgeed taabici xasanulbasri hadduu abu hureyre xadiid ka wariyo xadiidkiisu waa munqatic oo qofba isagii abu hureyre u dhexeeya. kuwo kalena waxay leeyihiin sidaas maaha. meel dooda saas ay ka jirto ayaa nin baa yimid, warkii buu maqlay. ninka waxaa la yidhaahdaa sida halka hoose ka aragno ma'muun ibnu axmed, halka inagoo muuqata. doodii buu maqlay, labadii laga murmay, halkiibu intuu istaagay uu sanad isku taxay, xadathana sidii xadiid nebiga sal slam uu ka warinayo ayuu xadiid intuu soo dareeriyey sanadkiisa ayuu wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi xasan wuu ka maqlay abu hureyra. nebiga sala allahu alayh wasalam miya xasanulbasri iyo abu hureyre ba xadiid kala wariyey inoogu sheegay xadiid? waa iska been cad oo muuqata. dadkii meeshii la fadhiyey buu ku alifayba dadka hortoodii. xishood darrada halkaas ayay ka joogto. kaasoo kale waxaa leenahay xaaladda uu ku yimid ayaa lagu ogaan karaa inuu xadiidkan yahay been iyo waxaan jirin. waxaa jirta khaliifkii haaruun arashiid aabihii almahdi, maalin wuxuu jeclaa xamaamka inuu shimbirtan qooleyda inuu ku ciyaaro. isagoo meeshii qasrigiisi joogo qoolada ku ciyaaray ayaa ninba u yimid, wuxuu rabay inuu u mujaamaleeyuu rabay xoogaa isna shilimaad loo tuuro. markii uu arkay wuxuu xadiid jiray oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey ayuu intuu sameeyey buu qeyb xamaamka ku saabsan buu xagga dambe kaga daray si uu khaliifka u qanciyo, sidaan uu xoogay shilimaada uu gaga helo. marka taa waxay isla markaana khaliifku ma ahayn sida dadka kuwa hadda jooge nin diinta yaqaano oo wax bartay buu ahaa. wuu fahmay marka sheekadu siday u khaldan tahay. kii uu iska diray shimbirtiina wuxuu yidhi shimbirta ha la qalo sida meesha lagaga turo. marka wuxuu isdareemay inuu ninkan dhan nebiga sala allahu alay salam ugu been abuurtay si uu isaga u qanciyo. wayna jirta xadiidyo badan saas loo alifay, qaar ay keenayso casabiyad, in qofkani uu rabo inuu cid taageero, mabda ama madhab ama cid qof siyaasadeed uu ku taageeraya siyaasad ahaan. intaasba way keeni kartaa. waxaa jira xadiid ay alifeen oo layihahdo nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ummaddeeda waxaa kasoo bixi doona nin la yidhaahdo maxamed idriis oo ibliis kaga daran, sharkiisu ibliis ka daran yahay. qofka ay ka hadlayaan ay saa u fogeynayaan waa imaamu shaafici. qolyo casabiyadii madhabka iyo nacaybkii ay u qabeen madhabka imaamu shaafici ayaa wuxuu gaarsiiyey heerkaas inay xadiid mawduuca oo been abuura ay sameeyaan. kuwa dhanka kalena waa saas, meel kastood ku arkaysa. waxaa keenaysa waxyaalahan oo kale casabiyad, waxaa keenaysa jaahilnimo, waxaa keenaysa inuu qofka isleeyahay dadka diinta jeclaysiiya. xadiidyo badan oo fadliga suuradaha qur-aanka, suuradda haddaad akhridi waxaasaad helaysa, suuradda haddaad akhridi waxaasaad helaysa, suuradda haddaad akhridi waxaasaad ka badbaadaysa. xadiidyo badan oo noocaasa waa xadiidyo mawduuca oon sal iyo raatoona lahayn. laakiin dadkii alifay xitaa markii lagu yidhi maxaa waxaan kugu kalifay, hore dadkan rabay inaan qur-aanka jeclaysiiyo. isaga wuxuu isleeyahay wanaag samee, laakiin nebiga sala allahu alay wasalam ayuu ku been abuuranaya. iyadoona imanaysa kuwii zanaadiqadii iyo diinlaawayaashii si ay diinta u fasaadiyaan
oo ay dadkii diinta tashuush uga geliyaan inay xadiidyo been abuura intay alifaan ay dadka u hoosgelin jireen. laakiin taas waxaa alla subxana watacaala inagaga badbaadiyey culummadu inay jiraan culummo waxaan u banbaxay oo xadiidka sida qofka waxaa la yidhahdaa sida qofka dahabka ka shaqeeya waqti dheer ku dhex jiray dahabka saxda ah iyo ka wax la qishay u kala garanaya. qofka lacagta ka shaqeeya lacagta saxda iyo lacagta faalsada uu kala garanaya xitaa isagoo waqti dheerba gelinin muuqaalkeeda koowaad ama taabashadeeda ayuu ku dareemaya. saasoo kale culimmada xadiidka waa ku leeyahay marka la weydiiyo waan garanaya xadiidka wax ka khaldan yihiin laakiin haddii la yidhaahdo fasir waxaad saad u fahanteeda ku garanaysid waxaa laga yaaba inaanan kuu fasiri karin. laakiin sida qolyahan kaleba maadaama khibrad waqti dheer ay leeyihiin ay u garan karaan wixii la khiyaamay dahab iyo lacag hadday tahayba. aniguna xadiidkii aan intaasoo sano kusoo dhex jiray ilaa caruurnimadeydii haddii wax laysu dhexgeliyo la khaldo waan dareemaya inuu xadiidkan wax ka khaldan yihiin laakiin waxaa laga yaabaa inaan adiga kuu sheegi karin sababta ay saas u tahay. qaybtii aan ka hadlayn oo ahayd waxa la yidhahdo cilada xadiidka mawduuca ee nabiga sala allahu aleyh wasalam lagu been abuurtay siyaabahaas ayaa ka mid a siyaabaha lagu ogaan karo ee culimmadu ay ku heli karaan kutubta ay uga qoreen kitaababa jiraba waaweyn laga qoray walow qaarkood ay culimmadu qaar xadiisyo sugan intay yaro taraaraxeen ay ku dareen laakiin wax qarsoomaya maaha xadiisyada qaar waxaa jira tusaale ahaan halkan ku haysano xadiisyo macnaha ay sheegayaan aad leedahay waaba macno qurux badanba laakiin waa been abuur haddana. tusaale ahaan xadiidkan mawduuca ah wuxuu leeyahay sinfaani min ummatii laba kooxood oo ummaddeeda ka mid a nebi sal slam bay xadiidkan ku been abuurteen. laba kooxood oo ummaddeeda ka mid a haddii ay hagaagaan ummaddu way hagaagaysaa amiirada iyo fuqahada. culammadii amiiradii hadday hagaagaan ay toosaan ummadduna way hagaagaysaa way toosaysaa. macna ahaan wax khaldan maaha laakiin xadiid jira maaha. imaam axmed wuxuu leeyahay fi axadi ruwaatihi kadaabun yadacu alxadiid. xadiidkan dadka soo wariyay mid ka mid a waa beenawaas xadiisyada alifa waa lagu yaqaana xadiid aan jirin oo been ah inuu sameeyo shaqadiisuba waa saas. qaala ibnu maciin wadaara qudni mil yaxya ibnu maciin iyo daara qudni iyaguna saas yidhaahdeen waxaa ku jira nin beenawaas ah oo xadiidka alifa. markii wariyaha lagu dacninayo inuu been sheegay xadiidkiisu wuxuu noqonayaa mawduuc. waxaa jira xadiid kale oo yidha asxaabii kannujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum. saxaabadaydu nebiga sal slam ba xadiidkan isna mawduuc ayaa lagu been abuurtay. xadiidku wuxuu leeyahay saxaabadaydu waa sida xidigaha oo kale kii aad ku dayataan waad hanuunaysaa. xadiid mawduuca weyaan xadiid jira ma aha. xadiidkan ka culimadu waxyaale waxay leeyihin ay sheegayan waxaa ka mid a dadka ku jira ay noo tilmaamayaan wuxuu leeyahay ibnu sulaymaan ninkan wariyahan matruukun muttaham waa nin warkiisa la iska tuuray oo la tuhmay waxaa lagu tuhmay inuu been sheegayo. yaxya ibnu maciin wuxuu laysa xadiithuhu bishay xadiidkiisu wax kasoo qaad ma lahaba waxa uu soo wariyo wax kasoo qaad ah ma laha. ibnu xibbaanna wuxuu leeyahay yarwi can ithiqaat almawduucaat culimo lagu kalsoon yahay oo hiqa ah iyo wuxuu ka warinaya xadiidyo been abuur ah oo mawduuc ah si uu maadaama iyaga lagu kalsoon yahay xadiidyo beena intuu sameeyo ayuu kuwaas ka warinaya laakiin wax qarsoomi kara maaha oo dad dhanbayba culimo dhanbayba tahay shaqadooda inay waxyaalahan oo kale ay soo saaraan. ereyada kale aynu u iman doono qofkii tuhmadii maadaama uu leeyahay waa muttaham kii beenta lagu sheegay lagu ogaaday inuu been sheegay waxaan yidhi isagu waa warkiisu waa mawduuc. kii lagu tuhmay inuu been sheegay warkiisu wuxuu noqonayaa matruuk isaga waa la tuuraya. laga yaabo in warkan inuusan ahayn mawduuc laakiin maadaama aan ku tuhmayna been warkiisa waan ka tegayna waan tuurayna. halkan waa kan mar labaad wuxuu ina leeyahay ninkan sanadka ku jira waa matruuk. matruuk waxa weeye wax kasoo qaad ma laha wax kasta uu wariyo waa tuuris qashinka lagu daraya. waa darajadii ka hooseysay kadaabkii mawduuca samaynayey kii aan ku tuhumnayn isaga waxaan leenahay warkiisu waxa uu noqonayaa matruuk waan tuurayna. marka intaan tusaalayaasha kala gelin aan mar kale aan kor ku noqono soo namuu dhihin
waxyaalaha cadaaladda dhaawacay waxaa ka mid ah kadibki iyo beenti, ama in beenti lagu tuhmay. ka beenti kii lagu tuhmay wuxuu leeyahay isaga waa matruuk. ka mar labaad aan soo laqbayno uma tacnu, duridii wariyaha la tacninaya, la duraya, la eedeynaya waxay ku iman kartaa ima an yakuuna likadibi raawi, in wariyuhu uu been sheegayo, sida kana hadda soo sheegayno, si cad ugu been abuuray nebiga sal ly slam si uu khaliifka shilimaad uga helo, ama si cad u been abuuranaya isagoo oo leh maxaa yeelay xasan albasri abu hureyra wax ka wariyay nebiga sal ly slam, xadiis laga soo wariyay baa saa sheegaya, been cad uu u sheegay. marka qofka saasoo kale likadibi raawi xadiidkiisa waxaa nidhi waa mawduuc. siyaabaha lagu ogaan karana waynu tilmaanay, inuu qirto in xaaladda markaas lagu sugan yahay iyo siduu hadalka u yidhi laga garto, in casabadiyad waxyaalaha keeni kara ku kalifi karana waa inuu madhab ama cid uu taageersan yahay uu ku taageero, in caqiide uu rabo inuu dadka ku dhex faafiyo uu ku taageerayo, in inuu yahay zandiiq diin laawo ah rabo diinta dadka inuu ka fasaadiyo, mid isle xogay dadka diinta jeclaysiyo isaga khayr ay ka tahay laakiin khayr doonkii meel khaldan la galayna isagana way ka suurada inuu saa sameeyo iyo wixii lamid. aw tuhmatihi bidalik, in lagu tuhmay beentiina waxaan yidhi waa matruuk. qofkii been lagu tuhmo waxaan leenahay ninkaas waa matruuk, xadiidkiisuna waa matruuk, waa tuuris. aw fuxshi khalatihi, hadduu khalad badan yahay. aw khaflatihi, qof iska dhoohanoo waxa uu sheegayaba uusan u kala socnayn u yahay. aw fisqihi, ama uu faasiq yahay. saddexdaasba waxaan leenahay warkoodu waa munkar. munkar waxaan hore u soo marnay markaan ka hadlaynay shaadkii, waxaan nidhi warka qof hiqa ah dad kale oo hiqooyina uu ku khilaafo waxaan leenahay waa shaad. laakiin isagoo daciifa haddii uu dad hiqa wax ku khilaafo waxaan leenahay warkiisu waa munkar. isagoo daciifa hadduu dad ku khilaafo warkiisu waa munkar. halkana sidoo kale hadduu khalad badan yahay, xadiidka qof khalad badan xadiidkiisu ku jiro u wariyo waxaan leenahay xadiidkan waa munkar. qof غفلad ku jirto hadduu wax wariyo waan leenahay xadiidkiisu waa munkar. hadduu faasiq yahay waxaan leenahay xadiidkiisu waa munkar. saddexdan marka munkarkii maxaa aan tilmaamayno aynu isla eegno iyagana sida aan erey bixintan aan u adeegsanayn. waxaan idhi mawduucii xadiisyadii mawduuca lasoo warinayo, xadiidkan asxaabi ka nujuum dadka ku jira waxaa ka mid a cabdiraxiim ibnu zayd, waa kadaab. kadaabkii maxaa nidhi markaa xadiidkiisu warkuu soo wariye wuxuu noqonayaa mawduuc. sidoo kale wuxuu leeyahay ibn cabdilbar markuu xadiidkan ka hadlaya wuxuu leeyahay wahada isnaadun laa yasix, isnaadkan xadiidkan lagu soo wariyey mid ansaxaya ma aha. dadkii ku jiray ayuuna inoo tilmaamaya. ibn maciin wuxuu leeyahay xadiidkan laa yusaawi filsan, ama arkan kana waxaan wax macno leh ma aha, wax ka soo qaadba warkani iyo sanadkan lagu soo wariyey ma laha. bukhaari markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay munkaru lxadiis. ninkan cabdiraxiim la leeyahay warkiisa isaga bukhaari wuxuu ku tilmaamay waa munkar. wixii isagu laga soo wariyey ninkaas munkar ayuu noqonaya, waa tuuris. daara qutni wuxuu ku tilmaamay matruuk. ibnu cadina wuxuu leeyahay caamatu maa yarwiihi, waxa uu warinayo intooda badan waa mawduuc. halkan waxaan ka arkaynaa culimadu markii ay qiimeynayaan wariyaha soo warinaya, waxaa laga yaabaa ereyadan aynu leenahay ereygan kana loo isticmaala kana loo isticmaala midba inuu erey ku tilmaamo. waayo mid walba wuxuu ku qiimeynayaa xadiisyadii kala duduwanaa uu soo wariyey. mararka qaarna waxaa jirta culimmada qaar erey bixinada qaabkay u adeegsanayaan iyo qaabka ay markii dambe ku xasishay, weliba culimmadii hore qaabkay u adeegsanayaan qaabkii markii dambe ku xasishay inay xoogay kala yara duwan yihiin. oo bilowgii hore erey bixinadu inay si aan hadda sidan ahayn adag ay erey bixintu wax meel gaara ku koobanta aysan ahayn, si qaabkaas ka fudud oo ka baahsan in loo isticmaali karo. markaan ka hadlayno wariye been sheegaya mawduuc baan dhihi karno, sida bukhaari uu ku leeyahay warkiisa waxaan leenahay waa munkaru lxadiis. waa isla meeshii wuxuba waa wada tuuris, waxaan leenahay waa matruuk. qofkii been sheega ama faasiq ah ama khalad badan warinaya ama maxay ahayday uu ku jiro khafle ay ku jirto warkiisa ama been lagu tuhumsan yahay, leenahay waa matruuk, warkiisu waa mawduuc, munkar, xadiidkiisu waa xadiis munkar ah. hadduu been aan cad ku haynana waxaan leenahay waa kadaab. haddii lagu tuhmayna waxaan leenahay waa muttaham oo been ayaa lagu tuhmay.
isla ninkan marka xadiidka marar badan waxaan arkaynaa dad aan xadiis waxba ka garanaynin, laga yaabo weligood kitaab xadiis inaysan laga yaabo weligood kitaab xadiis inaysan akhrinin, laakiin meelaha internetka inta wax ku arkaan yani xadiidku waa sidan oo wax lagu kalsoonaan kara maaha. laakiin culimada dadkan waxaan ka hadlaya, ninkaas qof walba wuxuu leeyahay dabagal lagu samaynayo iyo diiwaan u qoran. haddii aan la garanayn waxaan leeyahay qofkan xadiidkan laga soo wariyey waa majhuul. maadaama majhuul yahayna waxaan idhi maadaama aan la garanaynin, xitaa qof fiican hadduu ahaa waa tuuris, waayo lama garanayo. marka cabdiraxiimkan walaan eegno sida loogu diiwaan geliyo. hadda kitaabkan liyaa tahdiibu lkamaal fi asmaa'i rijaal, imaam almizi uu leeyahay. ninkan markuu ka hadlayo waa kan qaybtiisii, marka wuxuu inoo sheegayaa ciddii uu wax ka wariyey. aabihii buu wax ka wariyey, maalik ibnu dinaarna wax buu ka warinaya. ciddii isagana wax ka warisay ayuu inoo taxaya, wuxuu inoo sheegay hebel iyo hebel iyo hebel baa wax ka wariya. marka haddana wuxuu inoo sheegayaa culimadii xadiidka ee waaweynaa maxay ninkan ka yidhaahdeen, sidee bay u qiimeeyeen. yaxya ibnu maciin wuxuu leeyahy laysa bishay, qofkani waa qofan waxba ahayn, wax kasoo qaad mala warkiisu. kana wuxuu leeyahay waa gayru thiqa. ka ku xigana wuxuu leeyahay waa daciifu alxadiid, turika xadiithuhu munkaru lxadiid, xadiidkiisu waa matruuk, waa munkar. marar badan wuxuu sameynaya aabihii, xitaa xadiisyada aabihii buu wax been aan jirin intuu ku daro buu ka warinayay. bukhaari wuxuu leeyahay isna tarakuuhu, way ka tageen, macnihiis waxa weeye matruuk weeyaan, warkiisa ma qaataan, cidna waxba kama soo qaado. imaam abu daawud isna wuxuu leeyahay waa daciif. nasaa-i wuxuu ku tilmaamaya matruuku alxadiid. markaan aragno siday culimmadu ay warka u sheegayaan, waxyaalaha ay u diiwaan gelinayaan, qof walba lagu qiimeynayo oo waxan. qof markaan xadiidkii iyo qaabka loo diiwaan geliyey iyo aqoontiisa aan lahayn, hadduu markuu iska yiraahdo xadiisyada laguma kalsoonaan karo, wax layska qorqorayo, wax sidan oo kale qofkaas isaga waxay tusinaysaa jahligiisa iyo garasho la-aantiisu halka ay joogto. xadiidkii wax runtii waxba uma dhimayso, waayo waxaanu ka hadlayo waa waxuusan aqoon iyo garasho toona u lahayn. intaas ku egna qiimeyntii wariyayaasha iyo qaabka warkooda lagu eegayo. aan dib ugu noqon haddana mar labaad imaam ibn xajar raximah llahu tacaala hadalkiisa iyo qaabka uu inoogu sheegay. wuxuu leeyahay فالأول كان كوباد بنتا والموضوع، والثاني المتروك كي لو تهمي بنتا، والثالث المنكر كي فحش غلط لها، غلط كي سبدنا ومنكر على رأي سيد أركتي أي قبطه وكا وحامل شرط أركتي كلا أكدوان سيدا هر أصوت الماني. وكذا الرابع سيدا سكرنا وحالمي دا الرابع كان أفراد غفلدين ومنكر، والخامس كشناد فسقين ومنكر. قدو فسقي يا غفلدي يا فحش غلط كيبا منكر بين قرين ثالث يا رابع يا خامس كي ويان. فمركو ليه هي مدام وير الثالث كي فحش الغلط كاها ومنكر، وكذا يقول منكر والله مدا الرابع او غفلته، والخامس او فسقه يا يسقون حنقنيا منكر كي. ثم الوهم هدبا وهمجي عن الوايس موتين انه وهميو inuu si xadiisku qaabku ahaa mooyaan qaab kaluu isu moodsiiyey qaabkiibuuna ku dhagay. waxaan leenahay wahmigii iyo ismoodsiintii in tulica calayhi bilqaraa'in, haddii lagu helo oo lagu daalacdo lagu ogaado qaraa'intan waan tilmaami doonaa insha allahu tacaala. qaraa'inta waxaa weeyaan waxyaalo ina tusinaya warkani inuu wahmi ku jiro, waxbaa khaldamay, waxbaa istaba maray wariyahan, warkii waa ku qalloocday, si khalad uga dhex galay. waxaan ku ogaan karnaa qaraa'in, waxaan kaloo ku ogaan karnaa jamci turuq, dariiqyadu xadiidkani ku yimid markaan soo ururino. dariiqyada soo ururino waxaan nidhi waxaa la dhahnaa ictibaar. warkii waan aragnay xoogay inuu cilaysan yahay uusan hagaagsanayn baa inoo muuqatay. dariiqyadii lagu soo wariyey baa soo ururinay. markaan soo ururinna waa nagini waxaa loo yaqaanaa ictibaar. waxaan eegaynaa mutaabacaat, waxaan eegaynaa shawaahid baynu u raadinaynaa. yaa ku raacay warkan sida u wariyey, wax markhaatiyo shaahida ma leeyahay, mutaabaca ma leeyahay, ma mutaabaca taama aba ama mutaabaca naaqisaba ah. marka xadiidka wahmiga uu galo ee ismoodsiintu ay gasho lagu ogaado qaraa'in iyo jamcu duruq lagu ogaado inuu wahmi ku jiro, inay wax khaldameen, xadiidka waxaa la yihahdaa mucallal. kan lixaad ee wahmigu ku jiro waxaa la yihahdaa mucallal, waa xadiid cilaysan. waxaan soo ogaanay xadiidka maqbuulka ahaa
waa inuusan ahayn, waa inuusan wax cilo a lahayn. hadduu cilad leeyahay ama wahmi iyo wax lamid ay ku jiraan, xadiidkaas wuxuu noqonayaa daciif marduuda ayuu noqonayaa. marka qaarkood xadiidka cilada waxaa keenaysa oo cilada ku kalifaysa in uu wariyihii uu sanad tusaale ahaan mursal ahaa, inuu isagu mursalnimadii uu ka saaro oo xidhiidhiyo, ama war uu saxaabi lahaa inuu usoo wariyey sidii war nabiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey iyo wixii la mid a, ama war munqatic aha kala go-an aan xiriirsanayn inuu xiriiriyo oo usoo wariyo sidii qaab sanadkiisa uu xiriirsan yahay. hadduu khaladyadaasoo kale ay ka dhacaan, ismoodsiintaasi ay gasho, macnaha warkan waa mucallal, cilad baa ku jirta, sidii saxda ahayd maaha. xadiidkaas sida uu saxda ku yahayna waxaan nidhi marka kanoo kale la barbar dhigayo waxaa la yihahdaa waa macruuf. waxaan leenahay markaan xadiidkii saxdaha soo helno, xadiidkan wahmigu galay waa mucallal walmacruufu, sida macruufka ama walmaxfuud sida maxfuudka ahina waa sidaas waan u sheegayna. hadduu xadiid munqatic ahaa uu ka dhigo mutasil xiriirsan, waxaan leenahay xadiidkani waa mucallal, laakiin sida macruufka ah ama sida maxfuudka ahi waa inuu xadiidkan yahay xadiid munqatic ah ama mursala iyo wixii lamid a. waanigus horena waxaan usoo tilmaamnay culimada cilmigan cilooyinka ku takhasusay ee looga dambeeyo way kooban yihin. waxaa ka mid a cali ibn madini, axmed ibn xambal, imaam albukhaari, waxaa ka mid a sidoo kale abu xaatim, abu zurca iyo daara qudni, qaarkood aynu soo tilmaamnay. wahmiga wuxuu inagu yiri waxaa lagu ogaan karaa qaraa-in iyo jamcu turuq. xadiidku dariiqyadii uu ku yimid inaan soo ururino aan eegno. marka waxaa jira imaam shaafici markuu warinay wuxuu leeyahay akhbarana sufyaan can الzuhri can caliy bni xusein can camr ibni cuثmaan عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ساس إمام شافعي كورني. إمام مالك حديث كان مركة ورنيو هل كان عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ويلشيسي مثكم إذا ويان عمرو مثك لو حاجة هذا عمر بن عثمان قابك ورني إمام مالك وحويان مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان. halkii dadka kale imaam zuhri ba xadiidkan loo maraya, imaam malik wuxuu ka warinayaa zuhri. ka dariiqyadii jamcu turuq markaan samayno dariiqyadiisi aagno, zuhri xadiidka marka lasoo wada maro dadkii zuhri ka qaatay waxay ku warinayaan inuu yahay in laga wari camr ibn cuthmaan, wiilka cuthmaan ibn cafaan dhale camr la oran jiray ayaa xadiidkan soo wariyey. xadiidkan wuxuu leeyahay muslimka iyo gaalku isma dhaxlaan. qof laba qof oo ehelo midna muslim yahay midna gaal yahay isma dhaxlayaan. imaam maalik markuu warinayo wuxuu meeshii camr ahayd wuxuu ka dhigay cumar, labadii wiil ee cuthmaan ibn cafaan dhalay ayuu isku bedelay. halkaas ayaa wuxuu leeyahay imaam bukhaari markuu ka hadlayay wa huwa wahmun, waa wahmi. marka waxyaalihii xadiidka lagu tacninayay ee lagu diidayay waxaa ka mid ahayd baan nidhi wahmiga marka muxuu yahay? wahmigu waa sidan oo kale, in khalad sidan oo kale uu sheekhi ku dhaco. imaam maalik marka sidan laguma deenin, waa loo tegay, waxaa lagu yiri sidan ba dadka kale oo dhan ku warinayaan, aduu maxaad armuc uusan cumar ahayn oo cuthmaan yahay. imaam maalik isagu ma aqbalin taas, wuxuu yiri anigu waan garanayaa cumar iyo cuthmaan, camr iyo cumar waan kala aqaanaa, labada wiil ee cuthmaan dhalay. wuxuu leeyahay naxnu aclamu bihi, waan kala garanaya, reer madiina nahay, midna gurigiisa waa ka midna gurigiisa waa ka, waan kala garanaya, maxaad ii sheegaysaan? marka wuu ka dhaqaaqi waay meeshiisii, iyadoo dadkoo dhan ay isku raaceen xadiidkan inuu yahay can camr ibn cuthmaan in laga wariyey ee uusan ahayn cumar sida uu imaam maalik sheegayo, haddana waa lagu qancin kari waaye. laakiin bini aadan baa si kastoo imaam maalik uu u yahay najmu sunan, imaam shaafici wuxuu ku tilmaamaya xidigii sunooyinka, xadiisyada nebiga sal slam iyo sunnada nebiga sal slam. culamada ma kale isbarbar dhigo, imaam maalik waa xidigoodii. isagoo haddana heerkaasa qof bani aadan baa leeyahay, khalad wuu dhici karaa. sidaasoo ay tahay xadiidka sida uu saxda ku yahay waa inuu yahay can camr ibn cuthmaan, laakiin wahmi baa ka galay imaam maalik, isagu wuxuu ku wariyey cumar ibn cuthmaan. waana tusaale aynu ku fahmi karno
waxa wahmiga looga jeedo. sidoo kale xadiid kale ayaa jira oo uu laba wariyey imaam. xadiidkii sidiisii macnihiisi isma bedelayo, laakiin sanadkiisii ayaa wahmi ka galay, laakiin matnigiisi waa sidii, waxba iskama bedelin. labadaa wiile walaalaha ah, camr iyo cumar uun buu isku bedelay, wuuna diiday inuu bedelo si kastoo loogu sheegay. أخبرنا مالك إمام شافعي حولي مالك وحنو شيخ عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم. عمر بن الحكم أي إمام مالك حديث كان قدري سنة كيسة. قال وحوي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية. لكن شافعي بقى كده بتجي مركي وحديثك سيد إمام مالك وقص وريه مركو شيخ حليه. قال الشافعي وهو معاوية بن الحكم. عمر بن الحكم ما أها قف حديث سنة كوتش رأي سيد الصحة هي وحويان معاوية بن الحكم. وكذلك رواه غير مالك. قرائنتي أن رادين وحين dadka kale soo wariyay sidee bay ku wariyeen. aan ku ogaanaynaa in halkan khalad ku jiro. dadkii kale ee soo wariyey qaraa'intii waxay noo sheegaysaa dadka kale oo dhan inay ku wariyeen inuu yahay mucaawiye ibnu alxakam. imaam shaafici marka wuxuu leeyahay wa adunnu malikan lam yaxfad ismahu. waxaan u badinayaa imaam maalik inuusan magaciis uusan xifdiin. magacii baa ka khaldamay, xifdigii baa ka khaldamay, marka saasaa waxay ku keentay inuu labadii magac cumar ibn alxakam iyo mucaawiya ibn alxakam inuu isku khalday oo isku bedelay. wuxuu leeyahay haddaynu hoosta eegno ereygan u socda waa kan wa huwa wahmun, waana wahmi. in labadan uu isku daray wahmi weeyaan, oo ismoodsiin iyo gef ka dhacay imaam maalik ayaa ku keenay in uu cumar ibn alxakam u bedelay inuu mucaawiya ibn alxakam booskiisi ku bedelay cumar ibn alxakam, sidii camr ibn cuthmaan intuu bedelay uu ka dhigay cumar ibn cuthmaan. labadaasiba markaa waa wahmi. imaam shaafici waxaa laga soo wariyaa saddex ruwaada xadiidka ka mid a inuu imaam maalik uu wahmi ku galay uu khalday. labadan iyo mid kale oo saddexaad aan halkan tusaalihiisu inoogu jireen. sida culimada kale ay inuu imaam maalik halkan wahmi ku galay waxaa ka mid ah albazaar iyo kuwa kale. marka qaraa'intii weeyaan marka uu leeyahay isaynamuu dhihin wahmiga haddii qaraa'intii lagu ogaado iyo jamcu turuq qaraa'inta aan ka hadlayno kuwan ayaa ka mid. dadkii kale soo wariyey sidee bay u wariyeen. haddii dadka kale o dhan si gaara u wariyeen, imaam maalikna uu hal dhinac maray, waxaan leenahay qaraa'intu waxay ina tusinaysaa oo aan ka fahmaynaa in halkan uu wahmi ku jiro oo imaam maalik khaladka uu ka soo galay labadaas istabamariyey, labadaa weriye uu istabamariyey. intaas haddaan dib ugu noqono matnigeennii. ثم الوهم وهمiga in اطلع عليه بالقرائن hadii qaraa'in lagu ogaado wa jamci الطرق iyo dariiqyadiisii oo lasoo ururiyey wuxuu noqonayaa falmucallal. xadiidkan imaam maalik uu warinayo uu leeyahay cumar ibn cuthmaan ama uu bedelay cumar ibn alxakam, waxaan leenahay cilaa ku jirta. cilada ku jirtana waxa weeyaan waa wahmi baa ku jiro. imaam maalik laba magac ayuu isku khalday oo istaaba mariyey, laakiin matni ahaan xadiidku waa sax, waxba kama khaldana ee sanadkiisi unbaa halkaas khaladku ka galay. kuwii kale ee culimadii kale ay soo wariyeen ayaana la qaadanaya. kan marka wahmigaas ayaa galay. saas ayaynu u kala isticmaalayna. uma طacnigii saqtigii iyo طacnigii baynu niri baa keenaya in xadiidkii la radiyo oo la celiyo marduud laga dhigo. ima an yakuuna طacnigi waa inuu ku yimaado likadibi الraawi wariyihii oo been sheegaya, aw tuhmatihi bidalika in been lagu tuhmay, aw fuxshi kalatihi ama kaladkiisoo bata, aw gaflatihi ama inuu qof wax iska moogoon si saxa wax u warin uu yahay, aw fisqihi ama faasiq inuu yahay, aw wahmihi inuu wahmi ku dhaco wax ismoodsiin, inuu magacyadii iskuba bedelo ama xadiidkii ereyadiisii khalad ka galaan iyo wixii lamida. sidaan ka arkaynana waxyaalahan qaarkood way isu soo dhowaanayaan. wahmigii marmarka qaar wuxuu noqonayaa khalad iyo kaflad, aw mukhaalafatihi ama in dadkii khilaafo. wahmigii xitaa markuu imaam maalik leeyahay cumar iyo camr uu isku bedelayo, ama mucaawiya ibn xakam iyo cumar ibn xakam isku bedelayo, iyaduba waa mukhaalafo weeyaan. marka marba meeshii la joogo ayay ku xiran tahay ereygan u adeegsanan. aw jahaalatihi ama qofkan waaba majhuul, qof aan la garanaynin, aw bidcatihi ama waa bidcoole,
أو سوء حفظه أما حفظه أياحن. bidcadan waxaan nidhi way kala duwan tahay midda qofka xadiidka laga qaadanayo iyo midda aan laga qaadanayo. dad waxaa jira bidca lagu sheegay laakiin xadiidkooda la qaadanayo. qaar waxaa jira bidca lagu sheegay xadiidkooda la qaadanaynin. marka bidcadii baa kala duwan. bidcadu hadday beenta ay ogoshahay, qofkaas bidcada uu ku jiro hadday u ogoshahay inuu been sheego, lama qaadanayo qofkaas. marka madhab bidco oo beenta caadi ka dhigay hadduu aaminsan yahay, de waa qof xalaashaday beentiisa, kaasoo kale warkiisa wax kasoo qaad ma laha. laakiin bidcaday ku xiran tahay waynu u tegi doonaa insha aw suu xifdihi ama xifdigiisa ayaa liita, saasaa lagu diiday. falwalu oo ah inuu kadaab yahay waa almawduuc, xadiidkii la alifay beenawaasku uu sameeyey, aw tuhmatihi bidalik ama been baa lagu tuhmay, marka waa matruuk, wixiisa dhan waa ka tegaynaa. أو فحش غلطه وغلط بدني وحنا لنا منكر ويا وركيسو غلط كيسا بدن، أو غفلته أو فسقه أو وهمه يجنا وحنا لنا هاي مي، أو غفلته أو فسقه يجنا وحنا لنا هاي ومنكر. دو غافل هاي أما هو فاسق هاي يسجنا وحنا لنا حديث كيسو منكر. ثم الوهم، وهم كي وكيل حادث إنه اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. قرائنتي وحيالي أن كوف قرني إن تسيني وحن إنه ماشي خلص كتشر الطريقين صو أورورني هدان أردنا ضدك ورنا يسي أشياء مثكرنا وسو أشياء علينا. فالمعلل حديث كاتوا معلل علد أيا كتشرته. إنتاس أيان إن شاء الله تعالى ما أنت كسو كوبينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.